dareenkii suuxi aan aragno muxuu ka sheegaa caafimaadka. Haddaba si taxadar leh dhegeyso. Dareenka suuxa ama waxa loo yaqaan monoerection waa calaamad muhiim ah taasoo muujinaysa caafimaadka hormoonada iyo xididada dhiigga iyo xubinta in ay si fiican u wada shaqeynayaan. Suuxa wal marka aragno dareenkeena inuu joogo waxay macno u tahay in saddex shay ay caafimaad qabaan. Midda koowaad in hormoonada dareenka qaabilsan oo ugu caansan yahay testosteronka uu si fiican u shaqeynayo maadaama suuxii meelaha u sareeyo uu joogo. Midda labaad xididada xubinta dhiigga gaarsiiya in si wanaagsan xubinta dhiigga qulqulka ay u gaarsiinayaan. Midda saddexaad in neerfayaasha iyo xubinteena habdhiskooda uu si fiican iskula shaqeynayaan. Haddaba maanta nasiib daro dhalinyaro badan especially rag badan ayaa arrinkan waaye ay ugu wacan tahay dhowr ciladood ee ugu horeyso in qofka habeenkii xilli fiican seexaneen, sidoo kale qofka stresskiisa inuu badan yahay, in wax exercise uusan lahayn, sidoo kale in qaybta dhexe caloosha ama belly fat waxa loo yaqaano dufanta caloosha ay aad u badan tahay. Haddaba haddii uu ka maqnaado dareenkaas wixii hal maalin wax dhibaato ma lahan ama laba maalin, laakiin wax ka badan 2 isbuuc dareenkaas daawaysid jirkaaga wuxuu dirayaa fariin taas oo baahan in laga jawaabo. Gunaanad caafimaadka ragga waa muhiim. Haddii aad dareento isbedel ha ka labalabeen inaad talooyin caafimaad